heshiis kan anu 6 bilood oo ka joogaa gobolka maalintii la doortay maanta waxaa laga joogaa 6 bilood iyo 3 biloodna waa labnaa 3 biloodna intaan shaqeyn wax shaqaa oo kale aan qabtay ma jirto laakiin maanta waa alxamdulilah rabbil caalamiin arrin 8-7 sano soo rafanaysay hadday soo guraadantay aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed iyo inta wanaagga jecel waxaan rajaynayaa inay aad iyo aad ugu farxaan waana wax lagu farxo kilomitiro soo laabtay oo kala maqnaa waa wax weyn adduunka dad badan waxay leeyihiin isu su-aalahayaan ninkaan awooddiisii u qaybiyo waa run awoodda la qaybiyo keli wataydi laa awooddi qaybin madaxsii kale cilla awooddiisa la qaybi ma jirto qof awooddiisa la taabtayda ma jiro waa aniga anaa marka qofkii maskaxda ku hayo ogow qofna lama bixin awooddiisa aan aniga ahayn anaa intaydi gaar ku tabaruxay oo u horay in gobolku soo laabto isu tag iyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan noqono kuwii isu taga oo si fiican isugu taga oo inta naga hadlayna degdeg baan u dhamaysan doonaa insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaa 15 bisha soo socota muddo bil gudaheeda inaan wax kasta oo naga dhiman aan dhamaystirano caasimadeedii dabdhabanno adigu muddo waa qaadanaysaa in la soo guuraa laakiin si tartiib bal ciddii caasimadda naga maqan iyo xoolaha naga maqan sidii sheekhu u sheegayna malaha way noo iman doonaan insha allah mar haddaan caasimadiisa halkay waxaan kusoo gabagabeynayaa ma rabo inaan badiyo waa waqti dambe dadkuna waa daalay dad baana waa iga dambeeyaa waxaan kusoo gabagabeynayaa reer galmudug arrintaan adinka idiintaa kuwa badanoo maanta xaraysan oo ka xaraysan oo weli wax fasirila ciddii wax fasiri lahayd faylkaa loo geeyo caawa ha akhrisateen oo idaacado waxaa laga qaldimaya sida ay tahay arrintu u sheega hal la ogaado ninka xilkiisii bixiyey anaga yahay dadkaan qoray ka bixiyey inuu anaga yahay la ogaada sidaa hala yeelo aad iyo aad baad mahadsan tihiin beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo cid walbana gobolkaa qaawadiisa waa qaawanayaa dadka waana la gacan qabto aad iyo aad baad mahadsan tihiin ummaddana waa ka sugaynaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo dad walbana waxbaan ka sugaynaa waa qaawanayaa hadda la dhameeyaa leenahay wasalaamu calaykum